سفير محمد شيخ حسن نوريه oo muddo fara badan diblomaasi iyo siyaasi weyn ka soo ahaa dawladihii Soomaaliya soo maray ayaa maanta kulan waxa uu kula qaatay ardayda jaamacadda Camuud kambaska jaamacadda Camuud waxaanu safiirku kula kulmay hool weyn oo loogu talagalay shirarka halkaasi oo ardayda uu uga soo jeediyay lecture ciwaankiisu uu ahaa ama muxaadaro ciwaankeedu uu ahaa diblomaasiyadda iyo xiriirka dawladuhu qaabka ay u wada shaqeeyaan safiir maxamed sheekh xasan waxa uu koray uga soo shaqeeyay wasaaradii arrimaha dibadda iyo tii qorsheynta ee dawladii hore ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu safiir uga soo noqday dawladii hore ee Soomaaliya Canada iyo Nigeria sidoo kale mar dambe waxa uu safiir uga noqday Somaliland wadanka Ethiopia isagoo Addis Ababa markaasi u fadhii jiray Professor Saleebaan Axmed Guuleed oo ah gudoomiyaha jaamacadda Camuud oo isbarayay safiirka iyo ardaydaasi lecture-kaasi dhageysanaysay ayaa waxa uu yiri Ambassador-ka is got a long and honorable history in his profession, his own profession. Markii uu jaamacadaha ka baxnay wuxuu shaqeeyay Ministry of Planning and then as Director of Coordination or Planning labadaba taga qasnay and then Minister of Foreign Affairs of the former Republic of Somalia ayaa wuxuu ka ahaa Chief Economist Office of Cooperation International Cooperation kana madaxa ka ahaa later he has become the ambassador of Somalia to Canada for several years with distinction. Haddana wuxuu noqday ambassador of Somalia to Nigeria, again with distinction. And into Canada to bariga horna he's got a master's in economics. His most recent assignment wuxuu ahaa representative innaga xaggeena waa ambassador xaggooga waa wakiil xagga Ethiopia. Ambassador or representative Somaliland, sorry, to Ethiopia. وكلا سفير محمد شيخ حسن وحا وكور بحيي أو مركزي كور رمي وحا أي دبلوماسية وتهاي يحرير كدولته قابك أي أوض شقيان تاريخهان هلك أي دبلوماسية كسوتشي دو يسوى الرماس فافاهين يانا وحا ويلي وكيل لدى وحلينا diplomatic representation وأدرك كوفر ضد كاس وحي إلى شان مصلحة ضد كاس إليك ودلك لجيينك وكيل كاي ستاف ولا شقيني أي كليهين وحيلا لمصلحة يلاليا مركز دلك سليه والمصلحة ده سوى حين نقوم كرتا وذا الشقين دل ولا بدأ وذا الشقينية وحين نقوم كرتا مد دقالة ولا ليه وحاي وحد دقالة وحاس نافسم وحين نقوم كرتا مد أمني يعني مصلحة ده ومدي لا مدكلا كلا سيدي السكول كيني لا لقاط لا ريجن كسكو أديدي مانتا وحصل يستحي أدو سمستي أما أورو سمستي حاجة سفيركو مركي ودميي محاضرة سياسي أما lecture كاسي وأرضيدا جناعسيجا يوكو مركزي دقالها دكتور وجديني أيا وحى أي هالكاسي كويدين سؤاله فربضان أو كصابصن إسكاشيجا دولته وحيابها أو كسليسين هي مصالح دولته وحى أي تهاي سيدا أو كله حلية الدجالدو أي جيران إيو وقت جنب الجليدة علاقات كدولته سيدا أي أوض شقيان إيو قابك أيهين وحنا سفيركو سؤالها سيوك وكلا أو فربضان وآذو حسابنا وأرضيدو أي ويدينيين uga jawaabay si aad u faahfaahsan oo qaarkood markaas ay lahaayeen qosol iyo farxad su'aalaha qaarkood iyo jawaabtooduna ay lahayd kuwa markaas run ahaantii laga murugoonayay markuu ugu dambeyntii waxa uu dardaaran ardayda ugu soo jeediyay waxbarashada ama aqoon kororsigu kaliya inaan ahayn wax shaqo uu lagu raadsado ee ay tahay buuli qofka noloshiisa in ay markaas wax ka bedesho oo waxyaabaha isagu uu deegaankiisa iyo meeshiisa uu ka helayo in uu horumariyo oo uu ku dadaalo xasan ciise shabakada wararka Sela News Borama